السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله wax walba oo koonka ka jiro ilaahay ayaa abuuray mid walbana wuxuu u yeelay shaqo u gaar ahaan suurtagal ah inaan wada ogaano ama wada aragno. Ogaanshadu waxay ku timaadaa kitaabka ilaahay soo dejiyay, aragtiduna waxay ku suurtagashaan nuur. Waxyaalaha nuur dunidu u yeelan waxaa ka mid ah dayaxa iyo cadceedda. Dayaxa iyo cadceeddu waxay ahaayeen kuwo isku iftiin ah. Ilaahay ayaa baabayay iftiinkii dayaxa waxaa la dhaafay iftiinkii cadceedda. Si loo kala soo habeenayo maalin, habeenku waa waqti la nasto, maalintuna waqti qud la raadiyo. Kala guuridooduna waxaa lagu xisaabiyaa waqtiga. mid walbana waxay leedahay shaqo u gaar ah. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. qorraxdu waxay soo baxdaa subaxii waxayna dhacdaa galabkii muddadaas iyo dharaarta ah. markay qorraxda dhacdana waa maqribka xilligiisana waqtigu bilaawdo maalinta cusub. ولا شيء هناك برائب. waxaa jira 24 saacadood oo ka soo bilaabma waa beri, aroor, barqo, barqadheer, harsookor, hargal, waa gelinkii hore hadhimo, galab dheer, galab gaaban, gabaldhac, fiidcawl, cawaysin, xiraad, mir, saqdhabo, saqbadh, saqdhexe, hiraab, jiidha waa beri, oogta waa beri, sagalka waa beri ayay noqonaysaa. saasay u soo wareegtaa. maalinta kama bilaabato markii saqdhex la gaaro. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiid macnihiisu yahay qofka sooman oo uu dardaarmayo wuxuu yidhi haddii habeenka ka yimaado dhanka bari, maalintuna ka sii baxdo dhanka galbeed, cadceeduna dhacdo, qofka sooman wuu afuray. maxaa yeelay waxaa dhammaatay maalintii loogu talgalay in la soomo. waxaa bilowday maalin cusub. maalinta cusubna waxay ka bilaabataa maqribka. nabiga sal alla alay wasalam wuxuu reebay in la xidhiiriyo soonka 2 maalin. ilaan haddaad la sugto saq dhexe waxay la mid tahay adigoo 2 maalin wada xidhiiriyey. sababta loo sugana ma garan karno oo ilaa laga gaaro saq dhexe. ilaan qoraxdu ma dhacdo saq dhexe, waxay dhacdaa maqribka. ilaan waxaan soo sheegnay cadceed in lagu xisaabiyo maalinta. markay dhacdana maalintii ayaa sidaas ku dhammaatay. habeenkii maalin markii laisku daro 24 saac waa maalintii oo dhammaystiran. intaan la soo saarin saacadaha lagu xirto gacmaha ama midda la suro derbiyada, waxay dadkii hore ku xisaaban jireen iftiinka sheeyada ama walxaha iftiinkooda ee cadceeddu qabato si loo kala sooco waqtiga saacadda 2 saac 3 saac 4 saac ilaa laga gaaro 12 maqribnimo. waxaa tusaale kaaga filan nebiga iyo asxaabta iyo waqtigii kasii dambeeyeyba waxaa lagu xisaaban jiray salaadaha duurka iyo casirka shay harkiisa markay cadceeddu qabato. xataa kitaabadu ay ku qoran yihiin ilaa hadda. 30 maalin markay qoraxda soo baxdo ay dhacdo kadib waxaa dhammaystirmo 1 bil. bish markay dhammaystirmatana waxaa bilaabato bil cusub. 29 markay marayso galabtaasi qoraxda markay sii dhacayso ayaa waxaa la bilaabaa dadka inay sii raadiyaan inay bil cusub bilaabatay in kale. inaan lama raadinayo saq dhexe, waayo maxaa yeelay cadceeddii waxay dhacday maqribka, maalintii ayaa dhammaatay, maalin cusub ayaa bilaabatay. maalintaas cusub bilaabanaysa 30 maalin kadibna waxaa la raadiyaa dayaxa inuu soo muuqday. ilaan dayax ayaa lagu xisaabiyaa bilaha oo ka kooban 12 maalintii ilaahay abuuray cirka iyo dhulka kasoo bilaabay ilaa maanta. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. waxaa jira 12 bilood oo la shaqeeya waxaana ka mid ah mawliid, rajal hore, rajal dambe, wariis, waa bariis, sabuux, waa kuwa dayaxa la shaqeeya sida hijriyada u shaqeeya. 12kaas bilood wuxuu ilaahay u qaybiyey 4 ka mid ah inay kuwo la xurmeeyey yihiin, 3 isku xigaan: dilqacda, dilxaj, muxaram iyo rajab oo ka dambayso. dadka qaar waxay sheegtaan inaan lagu xisaabin karin dayaxa 4 xilli: xagaa, jiilaal, deer iyo guga. taasina maaha mid sax ah. dhab ahaantii waxaa jirta qura 2 xilli, waa xagaaga iyo jiilaalka. taasina ayaa qur-aanka lagu sheegay ilaahay markuu ka hadlayay ganacsigii reer Quraysh. safarkii ay ku bixi jireen, safarka ganacsi Quraysh ay ku aadi jireen Shaam iyo Yemen, waqooyi iyo koonfur, xilliyada xagaaga iyo jiilaalka. jiilaalka waqtiga qabow, xagaagana waa waqtiga kulul. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. dowladaha u da'o barafka mar wuu ka soo daahaa marna wuu u soo hormaraa. waxayna mar walbana beddelaan waqtiyada 2 xilli xagaa iyo xilli jiilaal.
iyo cagsi ama xilli jiilaal xilli xagaaga u beddelaan. waqtiga xagaaga maalinta ayaa dheer, ilaan qoraxdii ayaa waxay dhacaysaa waqti dambe. marka jiilaalka la gaarana waxay dhacaysaa qoraxdii xilli hore. maalintii sidaas ayay ku gaabanaysaa, habeenkiina sidaas ayuu ku dheeraanayaa. farqiyada u dhexeeyo waa kala dheeraanshada dhicidda qoraxda ama dhicidda cadceedda. sidaas darteed ayayna isku beddelaysaa xilliyada cibaadooyinka inay ku soo aadaan mar xilli xagaa ama marna xilli jiilaal sannado badan kadib. sida ramadaanka oo kale wuxuu ahaa sannado ka hor mid ku jira xilliga xagaaga dhex bartankiisa, haddana wuxuu ku sii socdaa xilliga jiilaal. waxaan soo sheegnay marka dunida waqtiyaanteeda inay ku bilaabatay maalin bil markuu ilaahay abuuray. waxaa isweydiin mudan waqtiyaanta sanadka marka la xisaabinaya goorma ayay bilaabatay. waqtiyaanta sanadka waa mid furan. dadkii hore waxay u isticmaali jireen dhacdooyinka sida dagaalada iyo abaaraha. reer nasaare waxay doorteen waqti ay ku sheegeen inuu nebi ciise dhashay oo hadda marayso 2020. muslimiintan waxay doorteen waqti dhacdada ugu weyn ay soo marto muslimiinta waa xilligay ka soo baxeen cadaadiska iyo dulmiga iyo gumaysiga reer Quraysh markay u soo haajireen magaalada Madiina oo dawlad cusub heleen oo Nabi Maxamed uu hogaaminayay sallallahu alayhi wasallam ayaa bilaabatay sanadkii koowaad ee muslimiinta oo maanta maraya 1441. kuuriyada waqooyi waxay isticmaalaan sanadka xilliga uu dhashay ninkii aasaasay dawladooda oo hadda marayso 108 sano qura. waqtiyaanta dunida waxay bilaabatay markii la abuuray cir iyo dhulka. waxaan ognahay inay ka horeeyeen makhluuqaad kale intaan la abuurin cirka iyo dhulka, sida qalamka, looxul maxfuudka, carshiga, kursiga iyo in kale aanan garanaynin. waxaa la abuuray intaan dunida loo yeelin waqtiyeenta. qofna ma garan karo waxa ka horeeyay waqtiyeenta dunida. waa wax naga maqan Ilaahay kaliya og yahay. caqligeena iyo xuduudana la siiyay bini'aadanimadu ay ka baxsan tahay. maxaa diiday marka inaad sanadkaada ku xisaabsato 1441 maadaama muslim aad tahay? tan kalena maxaa diiday inaad waqtiga maalinta ay ku dhammaato maqribka ilaan cadceedii way dhacday sidii Ilaahay ugu talgalay. maalinta cusubna waxay bilaabatay maqribka ilaan bisha Ramadaan markay dhalato habeenkii ugu horeeya waxaa dhacdaa Ramadaan ayaa caawa koow ah. ma dhehaysid Ramadaanka beri ayuu bilaabanayaa ama saqdhaxu bilaabanayaa. taasina waxay muhiim tahay in la ogaado qof walba waxa uu ka mid yahay. sanadka ugu horeeya iskuulka bilaawdo oo la dhaho taariikh nololeedka markaas ayuu bilaawday waxaa lagu qoraa taariikh aadan adiga ka tirsaneen. marka waqtiyaanta dunida waxay ku bilaabatay iftiinka dayaxa iyo iftiinka cadceeda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء هناك برائب